السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan. waa mar kale iyo barnaamijkeennii qisooyinka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya haddii Allah awood la ogolaado anigoo ah Maxamed Saciid Cali Maxamed Turki. barnaamijkeena qisooyinka waxaynu ku soo qaadan doonaa qiso xaqiiqo ah oo dhacday. qisadaasi oo aad u cajiib isla markaasina mudan cibro qaadasho iyo weliba inuu qofku markaasi aanu ku kadsoomin dunida. qisadani waxa ay ku saabsan tahay nin ayaa waxa uu ahaa nin markaasi aan tukanin salaada isla markaasina aan si fiican u ilaalin waajibaadka cibaadada ee Ilaahay nagu adoonsaday ee Ilaahay nagu faral yeelay. ninkani waxa uu ahaa nin Ilaahay u nicmeeyay isla markaasina meel kasta oo wax kasta oo u baahdaba uu Ilaahay u siiyay, balse marnaba waajibaadka cibaadada ee salaada muu ahayn mid ooga isla markaasina sida ay tahay u tukada. waalidkiisu mar walba waxa ay kula talin jireen isla markaana ay ku waanin jireen inuu tukado oo aanu dayicin salaada, maadaama oo ay salaadu tahay xadhigga isku xidha qofka iyo Allah. isla markaasina axaadiista rasuulka ee saxiixa ay inoo cadeeyeen qofku haddii markaasi uu ka tago salaada inuu ku gaaloobayo oo uu kaga baxayo diinta haddii uu markaasi uu si badheedho uga tago. intii uu ninkani uu dunida ku noolaa marnaba muu tukan jirin isla markaasina muu oofin jirin cibaadooyinka iyo waajibaadka uu Ilaahayna saaray. waalidkiisuna sida aynu sheegnay mar walba waxa ay markaasi ay ku canaanan jireen inuu tukado salaada oo uu ilaaliyo, balse arrintaasi marnaba dheg jalaq umuu siinin. intii uu markaasi uu dunida ku noolaaba waxa uu ku noolaa khaatimo xumadaas. maalintii dambe ayaa ilaan adduunyadu haddii aad joogto in badan waxaa tahay kii ka socdaalaya ee gelayo safarka lama huraanka ah ee ah safarka aakhiro. ninkii markaasi waxa uu markaasi galay safarkii aan soo noqoshada lahayn, markaasi waxa uuna dhadhamiyey mowdka, sida uu Ilaahay qur-aanka kariimka ku yidhi kullu nafsin daa'iqatul mowt. naf kastaaba waxa ay dhadhaminaysaa geerida. wa innamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama. waxaanu idiin dhammaystiraynaa buu Ilaahay yidhi abaalmarinihiina maalinta qiyaame. faman zuxsixa cani nnaari wa udkhila aljannata faqad faaz. qofka naarta laga weeciyo ee jannada la geliyaa waa uu liibaanay. wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lquruur. nolosha adduunyaduna maaha raaxo yaro wax dadka dagaysa mooyaane wax kale maaha. ninkii markaasi waxa uu dhadhamiyey geerida oo waa uu dhintay. markii dambe ayaa waxaa la bilaabay in la maydho, balse markii la maydhayay ayaa waxaa markaasi jidhkiisa ka soo baxayay daamur aad u madow, isla markaasina waxaa ka soo baxayay madow aad markaasi u wada daboolay jidhkiisa. dadkii maydhayayna waxa ay markaasi ay arkeen madowgaasi, balse waa ay maydhi kari waayeen oo hilibkiisa ayaa mar walba kala siibsiibanayay. balse markii ay dadkaasi ay la kulmeen mucjisadaasi la yaab kale, waxa ay taasi ku noqotay arrin aan fariir iyo ama kaag ay ka qaadeen. si kastaba ha noqotee ninkii markii la maydhay ayaa dabadeetana waa la kafmay. markii kafantii lagu xidhay ayaa waxaa la geeyey qabriga, isla markaasina waa la aasay. balse intii aan la aasin aan qabriga markaasi loo qoday ee godka markaasi loo diyaariyey ayaa godkii waxaa ka soo baxday abeeso aad u weyn oo markaasi miliqsanaysa. kadib dabadeetana waxaa la yidhi godkan abeeso ayay leedahay, aynu god kale aynu geyno oo markaasi aynu meel kale u qodno. ninkii markii dambe waxaa loo qoday god kale, balse waxaa haddana ka soo baxday abeesadii godkaas loogu tegay mid iyadii kaba sii weyn oo iyadii oo kale aad moodo laakiin dherer ahaan iyo muuq ahaanba ka weyn. kadib dabadeetana waxaa la yidhi abeesadan godkanna way ka soo baxday, laga yaabaa inay isaga tallaabtaye bal aynu meel kale u qodno. ninkii ayaa haddana meel kale ayaa markaasi god looga qoday, isla markaasina abeesadii ayaa haddana sidii uga soo baxday. kadib waxa ay dadkii bilaabeen inay dilaan, balse inta ay haw soo tidhi ayay markaasi ay ninkii isku duuduubtay. haddana markaasi waa la waayey oo ninkii ayaa haddana laga waayey bahashii, balse markii dambe god kale ayaa la qoday. dabadeetana markaasi godkii ayaa haddana lagu arkay iyadoo ku dhex jirta.
dabadeetana waxaa loo bandhigay culimmadii markaasi meesha joogtay. Kadib dabadeedna markaasi waxa ay yidhaahdeen ninkani muxuu qaban jiray, muxuu ku noolaa, intuu adduunyada joogay muxuu noloshiisa ku qaadan jiray. Kadib dabadeedna markaasi waxaa la yidhi ninkani intii uu dunida ku noolaa marnaba muu tukan jirin, waxaana lagala quustay cibaadada salaada, isla markaasina si kastaba waxbaa loogu sheegi jiray, sare iyo hoosba wax loogu tilmaam, balse laakiin marnaba Ilaaha abuuray umuu sujuudi jirin. Culimmadii ayaa markaasi waxa ay yidhaahdeen arrintani waxa ay ku tusinaysaa khaatimo xumada uu ku dhintay, waana camalkiisa oo markaasi dee meel loo bedelo ma jirto, ee markaasi godkaa kula rida. Sidii ayaa ninkii godkii loogu riday. Godkii markii sidaa loogu riday ee ilka la dhigay ayay abeesadii ay gebigiisiiba isku wada duuduubtay, iyadoo intii aan la aasinba waxaa la maqlayay qarjajacda ka baxaysa lafihiisa iyo markaasi sida ay u burbursanayso. Kadib dabadeetana ninkii ayaa sidii lagu aasay, dabadeetana ciidda ayaa lagu rogay. Markii laga tegey ayaa dabadeetana waxaa loo tegay faamiligiisii iyo markaasi waalidkii, waxaana laga warsaday oo markaasi la weydiiyey bal ninkani waxa uu qaban jiray. Markaasi waxa ay yidhaahdeen ninkani intii uu adduunyada ku noolaa umuu sujuudi jirin oo umuu tukan jirin Allaha weyne awoodda badan ee abuuray. Kadib dabadeetana sidoo kale waxaa la yidhi muxuu kale oo samayn jiray. Waxaa kale oo la yidhi waxa uu samayn jiray waxa uu ahaa nin dadka isku dira oo markaasi aan ka dhex bixin, inuu dadka uu isku diro oo markaasi uu ka daba shaqeeyo oo uu markaasi uu dadka isku dhufto. Ninkani markaasi waxa uu ku dhintay khaatimo xumadaas, balse walaalahayga muslimiinta ah ee maqlaya fiidiyowgan amaba se daawanaya, waxaynu uga digaynaa oo markaasi loo baahan yahay inuu qofku iska ilaaliyo taariku salaadnimada, oo markaasi uu salaada iyo cibaadada uu Ilaahay uu inagu adoonsaday aynu markaasi aynu ku dadaallo, oo aynu noqono kuwo markaasi aan goynin xiriirka aynu Allah la leenahay, maadaama salaadu ay tahay shayga isku xidhaya qofka iyo Allah. Qofka salaada ka tagaana ee weliba si badheedha uga tagaana culimmadu ay isku raacday inuu markaasi uu diinta uu ka baxay. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay inuu qofku markaasi uu ilaaliyo salaada iyo cibaadada, maadaama oo cibaadadu ay tahay shay uu markaasi uu Ilaahay uu qof kasta oo markaasi muslina iyo weliba qof kasta oo uu abuurayba uu ka doonayo, isagoo Ilaahayna Qur'aanka ku yidhi wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liyacbuduun. Qisadani waxa ay mudan tahay inaynu ku cibro qaadanno oo aynu markaasi aynu gaadhsiino walaalaheena kale. Laga yaabaa haddii aad markaasi aad qof kale oo walaalkaaga aad gaadhsiiso in uu markaasi uu tukado salaada isagoo markii hore aan ahaynba mid aan tukanin salaada amaba se aan ka taga. waa tahay daawadayaal, intaasi ayaan kusoo koobayaa qisadani. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Siciid Cali Maxamed Turki. waxaa idinna kala socotaan bartaan YouTube-ka ku leeyahay ee Maxamed Turki channel. ha hilmaamin inaad like iyo subscribe saarto si aad markaasi aad u daawato waxyaabaha kale aan soo dhigayno barta YouTube-ka.